وعانو wanaagsan dhamaantiin ba meel kasto aad inagala socotaan ba wararkeenana waxa ugu waaweyn from Somalia, and Somalia is a failed, it's not a nation. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump mar kale weerar afka ku qaaday Soomaaliya oo uu ku tilmaamay wadan fashilmay. madaxweyne Trump ayaa khudbad dheer oo ka jeediyay shir sanadeed ka dhaqaalaha dunida. waxa uu khudbadiisa ku soo qaatay wadamo ay ku jirto Soomaaliya oo uu ku sifeeyay wadanaan gabi ahaanba jirin oo ku fashilmay hirgelinta nidaamka dawladnimo. The situation in Minnesota reminds us that the West cannot mass import foreign cultures which have failed to ever build a successful society of their own. I mean, we're taking people from Somalia, and Somalia is a failed, it's not a nation, got no government, got no police, got no military, got no nothing. khudbadiisa ku soo qaatay musuqmaasuq baasan oo ka dhacay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka oo dad Soomaaliya ay qayb ka yihiin loo haysto. Ilhan Omar talking about the Constitution that provides me. She comes from a country that's not a country. She's telling us how to run America. Not going to get away with it much longer, let me tell you. Donald Trump ayaa toddobaadkan shir jirayd ku sheegay in Soomaaliya ay tahay wadan fashilmay oo ku guuldareystay hirgelinta adeegyada muhiimka u ah dawladnimada. marka laga yimaado dhaliilaha xooggan ee Trump, xildhibaanayaasha falanqeeya siyaasadda dunida ayaa tilmaamay marka la isku akhriyo hadalkii uu madaxweyne Trump ku weeraray Soomaaliya iyo hadalkii uu Davos uu ka jeediyay oo ahaa mar kale inuu ku celiyo fariintii uu maalin ka hor ku weeraray. waxaa si cad u soo baxaya macno aad u qoto dheer. hadaladan istaba joog ah waxay tilmaamayaan in madaxweyne Trump uu karkarinayo qorshe gaar ah oo Mareykanku kula macaamili doono Somaliland sida muuqata. madaxweyne Trump hadaladan uu ku celceliyay in aanay dawlad rasmi ka jirin Soomaaliya iyo hoos u dhigidda awoodii iyo saameyntii ay safaaradda Mareykanku ku lahayd Soomaaliya waa tallaabooyin si isku xidhan u muujinaya in ay socdaan hawlo istiraatiiji ah oo Mareykanku qaadayo kuwaas oo la filaya in ay saameyn weyn ku yeeshaan gobolka waqtiyada inagu soo foolkale.